xaflad ay ku qalin jabinayeen arday dhamaysatay barashada quraanka kariimka ayaa ka dhacday xaafadda Xaj Cumar Digaale oo ka tirsan degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa waxaana xafladda ka soo qayb galay culimo waalidiin marti sharaf iyo maamulka madrasada Al-Ikhlaas ugu horeyn waxa halka ka hadlay maamulaha guud ee madrasada Al-Ikhlaas Ibrahim Maxamed Maxamuud isagoo ka sheekay marxaladihii kala duwan ee madrasadu soo martay iyo waliba qaybaha lagu soo kordhin doono madrasada waxaana hadaladiisii kamid ahaa ardayda waxa weeyaan maanta goobtan aynu isugu nimi madrasada Al-Ikhlaas waxaynu maanta xafladan u qabanay aynu ugu talagalnay ardayda waxa weeyaan quraanka dhamaysay oo 14 arday ah ayaa waxa weeyaan xafladda maanta aynu qabanay oo aynu ugu talagalnay ardaydaas waxa weeyaan waa dafcadii ugu badnayd waxa weeyaan quraanka maanta qalin jabisa ee shahaadooyin la guddoonsiyo waa dafcadii ugu farabadneed weeyaan madrasadana waxa weeye madrasada Al-Ikhlaas waxay aasaasnayd amba ay jirtay muddo ilaa 5 sano ah ilaa 2014 meelaha ayaynu aasaasnay amba aynu bilownay juhdi farabadan iyo dadaal farabadan ayaynu gelinay sida runtii waxaan dadaal la gelin amba juhdi la gelinna waxa weeye madalkiisa lama helo juhdigii iyo dadaalkii aynu bixinay iyo waqtigii aynu ku bixinay maalinkan maanta waxa weeye midhiisa way naga haynaa ardayda maanta inoo qalin jabisay waxa weeye soddonkii quraanka khatintay aynu shahaadooyinka guddoonsiinayno waxa weeyaan waa midhiha aynu soo saarnay waa tacabkii inaga galay waa juhdigii inaga galay waa dadaalkii aynu gelinay ilaahay xaqiisa waxa weeyaan haddii laga ogolaado juhdiga iyo dadaalka diinta islaamka waxa weeyaan aynu ku bilownay inaanan joojin doonin oon sii wadi doono insha Allah taala inta waxa weeyaan ilaahay ogolaado sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay mid kamid ah waalidiinta ardaydooda wax ka barato waxaana uu yiri ilaahay waxaan u barayaa inuu aakhiriyo iftiinkaba uu dhirgaabaan ilaahay uga barayaa annagana qaarna anfaco diinta anfaco dalka anfaco annaga aan anfaca inuu ubadka uu noo soo saaray inuu ilaahay nooga dhigaabaan ilaahay uga barayaa waxa kale oo halka ka hadlay gudoomiyaha xaafad Xaj Cumar Digaale waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya marka waxaan leeyahay ardayda quruxda badan ee 6 sanadood deganay wadaadku soo saaray waalidiinta waxaan farayaa inay u dadaalaan nadaafadooda quraankooda akhriskooda inay u dadaalaan ayaan farayaa ku buurinaya dhanka kale waxa halka ka hadlay mid kamid ah macallimiinta wax ka dhiga madarista Al-Ikhlaas waxaana uu yiri madaris waa laga yaabaa inay idin la jaartaay ama ku yaalaan tuulayaasha ama inta idin dhaw ku yaalaan madrasadinu la heer maaha waa madrasad jamciyaad ka diiwaan gashan oo hoos tagta waa madrasad wasaaradda diinta iyo awqaafta ka hoos tagta oo ka diiwaan gashan waa madrasad markay ugu yartahay shahaadadeeda ay tawsiiqinayaan ama ay saxiixayaan dhowr saxiix oo kala dambeeya maraysa weeyaan kolka madrasadiinu qiimo weyn ayay leedahay si aada ayaana isha loogu hayaa loogu dadaalayaa waxa hadalka soo gabagabay Sheekh Cabdiraxmaan Yaasiin Jaamac oo kamid ah culimada waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana uu hambalyo u diray ardayda maanta qalin jabinaysa ee dhamaysatay barashada quraanka kariimka ardayda waxa kamid ah arday kamid ah tartanka ka galay jaamaca berigi dhaweyto kullu waxaanu idin ballan qaadaynaa annaguna haddaanu nahay culimadiinii inamadiinii wixii awoodayda ay noqotay inaan wax la qabano oo waxaan wax bartay xataa ay ubadkiinu ka dhex muuqan doonaan mustajaamaca biidnillaahi tacaala oo ragga xufaadii ay taraawiixda tukin doonaan hadday jaamacaday noo soo baxaan inaanu idinla wax la qaban doono sidaa uu macallinku ka dhawaajiyey haddii ilaahay suurtageliyey inaynu tijaabino maxadkii inaanu soo dhaweyno oo ubadka yaryar ee halkaa ka imanaya waxbarasho intaa ka imaadaan tagayo suuqii Hargeysa dhib badan baa haysata marka inaynu farac ka mid ah halkan keenno aad baan ugu faraxsanahay ilaahay deeqdu idin shubo raysaynu fadhinaa kalaamkiisii baynu weyneynaynaa beedkiisii baynu ag fadhinaa waxaan laga maarmanaynaa oo ilaahay kitaabkiisa weynaynu baranay inaynu si dhab u caabudno oo arday ilaahayna ugu mahadnaqno subhanahu wa ta'ala ugu dambeyn waxa halka shahaadooyin iyo abaalmarin lagu guddoonsiiyay ardaydii dhamaysatay barashada quraanka kariimka Axmed Maxamuud Cumar Axmed Diyax telefishinka caalamiga